السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوات channel كنا هو في الشارع. داك حسب تاكو عم سبسكرايب شو كومنت لنا. هدانا شفتنا. أتوما سند وشذا. أمر كلا يمقال حسب محن إدينا هنا عاو. حوريس جار الله يراني. يوتيوبر كوي. كين سيكي هذا تقانين. مال داودا. سيكي صدقوا أن هذا كم بلعب مقعة أن وحيرنا تتعرف نورات كذا. تيجي كنوشة. magacaygu waxa waaye CK waxaan joogaa dalka America gaar ahaan Minnesota nolosheedu waxa tahay family-kayga la noolahay waxba iga maqno anything waa haystaa reerkay school ay ugu waaleen waa nacbay aniga astaanteedu waxa waaye ciyaalka xaafada I love my niggas so rajadeeduna waxa tahay mustaqbalka markasta jirkayga inaa dhiso six pack mar walbana gabar walba xaafada ka shidan oo ka soo baxda inaa gacanta ku dhigo Si no le ayuda a la fábrica, el camión le está. Estuve dando mi saco y me caí al suelo. Yo ya cogía los tacos, los arrastraba. adigaaga haddana daawanaya subscribe-ta gambaleelka furo like-ta saar commentiga share-tana ha ilaawi Okay, waa ku fahnay CK. Saasha ku weydiina waxa weeye goorma ayaad isku aragtay talent-nimadan youtuber-nimada ama fanaanka ma intii aad Soomaaliya joogtay iyo Muqdisho mise intii aad Yurub iyo gashay qurba warbixin yar oo kooban naga sii marka aniga Cumarka shaxan story-ga hadaan ka hadlo ma aha waxaan hadda bilaabay fanka ama majaajilistiinimada waxaan hadda tartan ugu dhalatay social media markuu bilaabay inaan meeshan soo ama baan sameeyo waxaa jiro high school-kii Soomaaliya Muqdisho Barwax ninkii yaqaano iskuul meesha isku yaalo ayaan dhigan jiray marka waan xasuustaa riwaayadii ugu horreysay aan ka qayb galo waa taqaanaa sanad dugsiyeedka iskuulka sanad walba marka la xirayo xafladaha la dhigaa marka meeshaas ayaan riwaayadii ugu horreysay 2002 aan ka qayb qaatay anigoo 6 jir ah anigoo ruuxa 12 jir ah ka qayb qaatay riwaayadii ugu horreysay riwaayadaas waxay ahayd qoriga dhig qalinka qaado waan xasuustaa marka runtii waan jeclahay wax majaajilnimada fanka aad iyo aad u xiiseeyaa waana hobigayga okay aad baa maanta mar labaad si inuu wada binaada adoo waxa tahay nin karan oo nin qadi yahay Maxamed Siid Soomaalida soo kaan bad maxaa leeyahay Soomaalida qabyaalad ku wareertay maxaa halkan fariin uga dirsan ciyaalka xaafadda hadaan nahay jokin aan sameeynaa jokin keena qabyaalad waxa la lahaa ma soo galo hadaan nahay dhalinyaro waxa arkaysaa nin dhalinyaro oo maanta haduu kaftamaay qabyaalad ku kaftamaay laan dheer ma tihid bala waxaas ma ficno hadaa kaftamaysid jokin sameynaysid without qabyaalad ka saar qabyaalad wax fiican ma isku day ana waxa arki jirnay 20 year qof aan saaxiib la ahay ila joogo wiligay ma aqaanin wuxuu yahay qabiilku yahay ana ima yaqaan that's life that's Soomaalinimo good qofka jeclaanaysid ku jeclaa Soomaalinimo ku jeclaan inaad waxaan leeyahay qabyaaladiistayaasha dhammaan bamuudka batriga gastad wax fiican ma qabyaalada dhamaantiin waxaan leeyahay one flag one Soomaalinimo hal isjeclaado ريال الله إيسارة سبسكرايب إيدها إيشير قرية إلهي بيد كل دار شيء okay سؤال ugu dambeysay aan ku weydiinay CK wax kula dadku waxa ku yaqaan inaad tahay single laakiin warar hoos oo soo gaaray waxaan maqlay inaad tahay xaasle waliba afar xaasle qaabka u soo xirgalsay aftada xaas iyo dhalinyarada maanta isfaan darrada ka jirta dhalinyarada la sheegay gabdhaha isguursanay maxaa ka iga baaq uga diraysaa waxaan su'aashaasna loo tataa afarta xaasaas ugu keento warbixin ku kooban la wadaag الرحمن الرحيم وحوي يرتين والله ما شاء الله سؤال هذا هدي أن كان جوابه هرت dhalinyaro idinka hadii aad tihiin way ku adag tahay waan aragnay si aad gabar ugu dhaqataan way adag tahay gabar ku dhaqmayso ma sha Allah inaad hesho oo maaragtay si wanaagsan oo problem lahayn oo dhibaato lahayn aad ku wada noolaataan haddaba ana idin sheegay aniga sidaan u arko
dhalinyaradiina aniga su-aashaad i weydiisay intaan kaaga jawaabin tiina ka hor waxaaba dhib idinku ah aroos intaan la dhigin isfahankiina inaad isfahantaan horta aad gabadhasaa kusoo xerogelinaysid brobleemyo fara badan taasaa aad jirto midda kale haddii aan su-aasheeda aniga aan kaaga jawaabo aniga maasha allah xaasaskayga si diinlaan kusoo gacangeliyey si diinlana waan ku dhaqdaa haddii uu broblem yimaado waxaa waaye bili-aadana leeyahay shaydaan aan ugu xiriiro afartooda mid kamid broblem ka yimaado ama maseer wax noocaas oo kale maasha allah sida diinteyda ay qabto diin aan ku xukmiya cilmi ilaahay siiyey xadiis aayaad qur-aan aan ku dul akhriyaa kadibna waxaa ii fududaato problemkaas inuu meeshaas ku okay CK mar labaad waa mahadsanta aniga say og tahayba waxaanay nahal xaasla hawshayda dhowr goor baan kasoo ogan haddana waxaan rabaa in mid kale marka dabcan waad ogeyntii horena haddana waxaan rabaa kii labaad baan raadinaya xaaska labaad marka haddii maseer dhaco la-aan maxaad igula talin lahayd maadaama tahay adigu nin khabiira laakiin adiga dhowr mal aad dariskayga tahay aan gabadha dhawaan aa guursatay bilaad qabtaa halkaas bil 10 jeer waa isku dhacdeen problemkiina waa dhageystay marka waxaad leedahay mid labaadan keena haddayba kuu suurta gasho mid labaad keento okay hadduu maseer yimaado maxaa ku xalinaya dhalinyaradiina waxaad taqaaniin ciyaalka xaafadda tihiin waxaad leedahay qoftaana kaa soo horeysa adiga caadi iska dhig qofyay waa ogtahay qoftaas jecel adagaan isla soo marnay bakerigan ka dhex arki jiray la-aanteed waxa macuni jir meeshaan diinaa la isku dhaafay afarta aniga hadda aan qabo oo yaryar ii joogo ii dhaqmaayo waxaa waaye diinta siday qabtaan ku xukmiyaa mid loogu xadgudbaayo ma jirto marka waxaan ku dhihi lahaa aniyahow haddii aad guur samaynaysid xag diiniyan ugu dhaqaaq haddii aad dhaqan samaynaysidna xag diiniyan ku dhaq maasha allah marka intaas waa istirta aniga aad iga raadinaysid aan kuu sheegayo taas waay marka waxaa waaye intaad ciyaalka xaafadda tahayna ma u malaynaya mid labaad iyo mid saddexaad inaa heli karto tii koowaadaaba ku dhib qabtaa Okay.